بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شركة تضباطنية اللحاد قلها وزيرة جمهورية الصوماليلان وقدوميني مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدن مسبح عبدي waxa uu la wadaagayaa farxadda iyo raynraynta iyo damaashaadka ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogto in Ilaahay si nabadgeliyo ah oo inoo ku dhameeyay doorashadii ugu cuslayd ee abid la qabto ee ahayd doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii dawladaha hoose oo isku sidkan oo runtii aynan hore u arag ama aynan waaye arag badan u ahayn inteena badan ee soo joogtay doorashooyinkii kala dambeeyay Soomaaliland laakiin waxa Ilaahay mahadiya oo aynu Ilaahay uga mahadnaqaynaa sida milgaha iyo karaamada leh ee ay ummadda reer Soomaaliland qof kasta isaga xil saaray in doorashadaasi nabadgelyo ku dhamaato si nabadgelyo aan aynu ugu codayno waxaan leenahay qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland waad ku mahadsan tahay sidii aad uga qayb qaadatay ee aad u codaysay iyo sidii aad nabadgelyada u ilaalisay labadaba aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxaa kaloo la hor keenay xeerka howlgabka shaqaalaha Soomaaliland oo ah xeer aad iyo aad ugu muhiima ummadda reer Soomaaliland hadday tahay dadka muddada dheer soo shaqaynayay oo u baahan in ay shaqada ka nastaan qaabkii ay u noolaan lahaayeen iyo qaabkii ay xaqooda u heli lahaayeen iyo kuwa dhallinyarada ee wax soo bartay siday shaqo u heli lahaayeen labada dhinacba ka jawaabaya ayaa saaka golaha la hor keenay oo runtii si aqoon iyo xirfad leh oo indheer garad ka soo shaqeeyey oo caalamka dad badan oo aqoon-yahano ah loogu yeedhay oo la jaan qaadaya miisaaniyaddeenna iyo qaabka waxaynteenna intaba oo aynu isleenahay horumar bay runtii lagu tallaabsaday weeye dhan kasta xeerkaana waa la qaybiyey waxaana warbixin fiican ka siiyey golaha wasiirada guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland waana la soo akhri doonaa waana la soo gabagabayn doonaa isaga oo dhaqan geli doona dhowaan golaha wasiiradu wuxuu kaloo aad iyo aad uga wada hadlay oo la isla falanqeeyey gabdhihii tartamay gabdhihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee tartamay ama golo wakiil ha u tartameen ama golo dawladaha hoose ha u tartameen xukuumaddu way garawsan tahay in aan tiradii la rabay ee la rabay inay ka soo baxaan labada gole aanay ka soo bixin xukuumad ahaan aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanuna la jirnaa dhammaan gabdhihii aan soo bixin xisbi kasta oo ay ka tirsan yihiin waanu dhinac taaganna waanuna la dareemaynaa xanuunka iyo tartankii dheeraa ee ay galeen inaanay guushii gaadhin laakiin waxay inoo noqonaysaa waxbarasho hor leh iyo sidii gabdhaha Soomaaliland ee mudan aynu u soo saari lahayn inaynu feker ka qaadanno laysu yimaado laga wada hadlo aynu dhan kastaba ka toosinno si ay gabdhuhu siyaasadda uga qayb qaataan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay Musabix Cabdi waxay diyaar u tahay inay gabdhaha la kulanto la fahmo wixii gabdhaha caqabad ku ah laga wada hadlo si macnale loo lafaguro dabadeedna loo baneeyo space ay gabdhuhu ku soo geli karaan siyaasadda iyo golayaasha qaranka intaba waxaa kaloo mudan inaan ku hadlo afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka qayb gelayaan imtixaanadii shahaadiga ahaa 32,900 oo arday oo gelaya dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waxaanuna madaxweynaha iyo golaha wasiiraduba idin rajaynayaan in aad Ilaahay idinku taageero imtixaanka oo aad intiina badani guulaysataan oo imtixaanka ka baxdaan idinkoo u gudbi doona dabaqa waxbarashada qaybtii labaad waxaa horumar weyn ka muuqda sida aad u aragto nambarka 32,000 oo arday
iyo 900 oo dugsi sare iyo dugsi dhexe ay inay imtixaan u fadhiisanayaan waxaa halkaa ka muuqda sida aynu maalin kasta u sii horumarinayno waxbarashadeenna jaamacadahana sanadkii waxaa ka baxa in ka badan 6,000 oo arday waxaad halkaa ka qiyaasi kartaa qaabkeenna waxbarasho xawliga ay ku socoto guud ahaan ummadda reer somalilan waxaan leeyahay guul waynu tartannay qof kasta oo reer somalilan doorashada wuu galay hadday xisbi mucaarad iyo hadday xisbi mucaafad iyo hadday qof ahayd iyo hadday gabadho iyo wiilal ahaydba waynu gallay guul baynu ka joognaa adduunkana sumcad weyn oo aan hore loo helin ayaynu ka helnay marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay qof kasta oo reer somalilan meel kastuu joogo wuu guulaystay kulligiin guul baan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu